gudoomiye ku soo dhawow warbaahinta Kismaayo 24 wareen waxaad naga warantaa qodobadii shirkan ka soo baxay iyo waxyaabihii looga hadlayay bismillaah aad baad u mahadsan tahay website-ka oo Kismaayo 24 aad baan idinku mahadcelinayaa waana soo dhawahay waa dhawahay waxaan maaragtay laba bilood saddex bilood buu socday shirka waxaa looga hadlayay aayaha goboladaas iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo ka dhacay goboladaas oo sidii dagaaladii iyo siyaasadihii isdiidana iyo doorashadii oo lagu doortay maamul goboleedka Jubbaland oo Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha waa tahay waxa idinku dhaliyay xilligan inaad ku soo beegtaan in aad shir ku yeelataan magaalada Muqdisho oo aad ku taageertaan maamulka Jubbaland maadaama dawladda Soomaaliya ay ka soo horjeedo shirkaas oo ay sheegtay inuu sanahay mid dastuurka waafaqsan bismillaah adeer aad su'aal aad u fiican oo muhiim ah waxaan nagu dhaliyay waxyaabaha nagu dhaliyay kamid bay tahay dawladda kumeel gaarka ah systemka ay u martay shirka oo dariiqa ay u martay oo si aan u aragna arrin aad u qaldan inay tahay dawladda kumeel gaarka waxa weeye dawladda kumeel gaarka way ka baxday waa dawladdii oo Soomaaliya marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay dawladda mas'uul ka tahay oo madaxweyne u tahay oo ay dawlad u tahay marka waxaa la rabaa oo cadaalad baa la rabaa dadku oo booga iyo nabraa kala gaaray nabraha iyo waxaa la rabaa dhays baa la rabaa booga in la xoqxoqo looma baahno marka booga xoqxoqis baa nooga muuqday sidaas darteed waxyaabaha nagu dhaliyayba kamid tahayba dawladdu iyo aragtideedaba waa tahay qodobadii ka soo baxay shirka waxaa kamid ahaa inaad si buuxda u taageersantiin maamulka Jubbaland ee hogaamiye Sheekh Axmed Madoobe maxaad ku taageerteen maamulkaas waxaan ku taageernay Sheekh Axmed Madoobe anagu hadda qof ahaan oo ma naqaan personalitadiisa ma naqaan laakiin oo dadka Soomaaliyeed wax doonayo maamulada iyo madaxtinimada mas'uuliyadda dalka Soomaaliya ka doonayo kamid yahay dadkii u soo tadawaray oo meesha qabtay oo shabaab ka qabtay buuna kamid yahay in loo mahad celiyay uu lahaa ma ahayn in laga hor yimaado la an yuraareeyo ma lahayn anagu marka deegaan ahaan dadkii deganaa maadaama oo aan nahay waxaan u baahanahay dadka degan meesha oo Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin nabad iyo dawladnimo iyo maamul bay u baahan yihiin 22 sano bay waxay ku jireen burbur iyo barakac iyo dhibaato ku jireen hadda in dib loo kakabo oo wax laga yagleelo oo dawlad la abuuro haday maamul xun baa yiri maamul la'aan bay dhaantaa in maamul la dhiso waa 3 sano waxa la doortay bari qof kale oo Soomaali ha imaanayo qofkii maaragtay oo ka bedelahay marka hadii la diido hadeer bari waxba ma hagaagayaan marka waligeeyo dagaal kuma jireen Axmed waxaan ku taageeraynaa asaga ma ahan qof waxaan taageernay maamulka in meesha laga helo baan taageeraynaa waa tahay dawladda Soomaaliya mowqifka ay ka qaadatay arrimaha Jubbooyinka ka socda gaar ahaan maamulka Jubbaland ee looga dhawaaqay halka soo waragta dawladda Soomaaliya madaxdeeda saro sidaan u aragno oo aragtidayada ah mid qaldan baan u aragnaa maamul saddex gobol oo israacday dadkoodii oo fadhiyo oo shir u fadhiyo wax waa qaldanaan karaan bini aadamku waxba qaldan hadda inta oo caasimadii Soomaaliya oo dawladda fadhida waxba qaldan caasimadii Soomaaliya oo saddex kun oo sano wax lagu guray qofkii Soomaaliya oo soo dhigido soo xamaasha shilinka uu helo meeshii uu gelinayay madaxweynaha iyo beeshiisa haysta maamul Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed ay ka dhax muuqdaan wixii hay'ada iyo khayraad iyo dalka iyo adduunka ka yimid iyo wixii gudaha ahaba ayaga biisha marka maamul haduu jiro qaladaad waa jirayaan inay wax qaldan yihiin waa dhici karta haday wax qaldan yihiin waxa la rabaa wixii in si tartiib ah oo nastahan ayadoon la ayuraaraynin oo qofka la dhihin mas'uuliyad ma lihid looma dhama aan la dhihin oo madaxdii qaranka aysan dhihin codkooda ma ahan looma dhama ma ahan codkoodii ma ahan inay maartay oo si tartiib ah qabow wax loo saxa oo dadkii la isku dibduwe in la yiraahdo looma dhama cadaadalan iyo gaalkacyalan iyo hobyalan iyo xaradheeralan in la ogolaado ayadu iyo jawharlan Kismaayo iyo beledweyne waa isku mid dad Soomaali ah oo walaalaha wada degan waxay u baahan yihiin dadkii in la isu dudumo dalkuna dadkoo dhan waa ku filan yahay uma baahno in qolob midab gaar ah tuka cambaar laga dhigo oo la cayrsado oo la daba galo oo ciidamo loo urursado oo lacag la isku dardaro contribution oo la yiraahdo waa weerarayna dariiq ma ahan
ciidamadii oo United Nationska iyo UNABOS oo African Union oo dalka gurmadka ku yimid oo samata bixiyaasha in kuwana la amaano kuwana la anyuraaray adigu waxaan u arkaynaa arintaas arrin aan fiicnayn oo nidaam dawlina ku fiicnayn mid ummadnimo iyo Soomaalinimo iyo jaalanimo aan ku fiicnayn baan u arkaynaa waatay dawladda Soomaaliya dhawaan waxay sheegtay in shirki ka soconaya magaalada Kismaayo maadaama ay ku sheegtay inuu sanad mid aan loo dhamay in ay qabanayso shirweyne looga hadlayo arrimaha Jubbooyinka isku keenayso dhammaan beelaha degaan goboladaasi Jubbooyinka odayaashoodii iyo wax garadkooda ay halkan ku heshiisinayso kadibna halkaas looga sameyn doono maamul loo dhanyahay soo aragtaa shirka ay dawladdu Muqdisho uga dhawaaqday aad baad u mahadsantahay aad baad ma kun iyo kow jeer waad mahadsantahay war arrinta ayada waxa la yiraahdaa hal xaaraan nini xalaal ma dhasho arrintaas aniga gef bay ila tahay dad in derbiyada laga soo ururiyo oo la yiraahdo waxay ka socdaan qof ka yimid qof degan deegaankiisa uu yahay Hargeysa yahay ama Garowe yahay ama Caabud Waaqi yahay ama degan meel oo lamid ah ama Jowhar degan in la soo qaado la yiraahdo Kismaayo ka hadlo anigu adeer oo arrintaas gef bay ila tahay Soomaalinimadana gef bay ku tahay ummadnimadii iyo mas'uuliyadana gef bay ku tahay dadkii deganaa meesha waa kuwa meesha ku shirahay oo la diiday shirkoodii la diiday suuragal ma noqon kartaa dad la soo ururiyay in la yiraahdo hotel xamar ku yaala oo lacag lagu baxsho loo kireeyo oo cunno lagu siiyo inay wax ku hagaagayaan aniga ma filayo arrinta ayada waa dhibaato iyo culays hor leh oo Soomaaliya oo loo sii horseedayaan u arkaya adeerow gacaliya arrinta ayada labada qof haday isqabtaan qofka wax badan baa ka imaanaya aniga shabaab bay gacan saar la leeyihiin iyo jinni bay gacan saar la leeyihiin midna oran maayo arrinta meesha ka dhacday waxaan qiyaasayaa insha Allah xilligeeda inay gaari doonto xisaabteedu maalin la xisaabtami doono cidii abaabushayna dadka meesha deganna waa og yihiin caalamkuna waa og yahay ummadda Soomaaliyeedna waa ogtahay qof diyaarad la saara iyo qof baabuur la saara oo lacag lagu baxshay in karays ay ka sameeyaan meesha cidii sameysay xisaabteeda maalinkeeda laga xisaabtamay laakiin anigu hadeer qolo gaar gacan ku fiiqi maayo waxa ugu dambeeyay maxad baa qodiraysa waxaan baa qodiraya waxaan leeyahay war Soomaaliyeed tashada ilaahay idin abuurayna oo meeshaan idin ku manaystayna ka baqa dagaal iyo isdil iyo qabiil qaraarkiisa waa aragteen waxna qofna qabiil macna kuma keeni karo waxa macna loo sameyn kara magacaan Soomaalinimada ha macna sameyn karo Jubbada hoose ma ahana magaalada Kismaayo kulligeeya nagu firan inta anagu xintanka iyaga uu dalka geeyayna inaad aragtaana fiican dad yow kala baabay wixii xintankii mirihiisi dad yow kala guranaya waxa fiican in ilaahay loo noqdo qof walbana uu dhiiga walaalkiis iyo xaqirka iyo boobka iyo tahdiidka in la iska daayo dhulka waa nagu wada filan yahay si walaalnimuhu noogu wada filan yahay hadaa dagaysa Kismaayo iyo hadaa dagaysa Gaalkacyo iyo hadaa Hobyo dagaysa dul Soomaaliyeed weeye bari dhulkii dad difaacay rabta cadow naga fog oo annaga cadow ma hina dad walaala ahaanahay oo isku oo qoys hoosahan isku nahay cadow ka fog ba u soo leeftamahay inaan loo sakhirin in dad kale ay gacantiisa gasho Soomaaliya inaan la sakhirin oo aan laga shaqeyn baan qaba waliba dadka mas'uuliyiinta ah oo mas'uuliyadda maanta waa lagu fiirinaya mas'uuliyadda Ilaahay baa kugu imtixaamahay qofkii mas'uuliyad Ilaahay u dhiibay oo qabiil iyo xumaan iyo xiqdi jeclayso maanta maalin aad ka tabar yartahay Ilaahay kula xisaabtamayo la isku mana dhaafayo arrintan adduun iyo aakhiraba xisaab bay gelaysaa waxaan ku dardaarmay ku adkaynaya arrintan meesha wanaaga laga fiiriyo Soomaaliyeed dalka iyaga waa dhinteen dad ma noola dal iyo dadba waa dhumeen dadka iyaga waa la ilhaanaysanay waa tan Koonfur Afrika waxaad aragteen ay ku dhacayaan in la dilay meydkoodii haddana la gubayo waa wax naxdin badan weeye caalamka meel walba ilmaha iyaga dad yow kale gacanta u galeen wixii waxaas keenayna waa ximbayta iyo reebel kan macna ma sameynayso qofka Soomaaliya oo waxba ku tarin
كرسي بكاغا كعي أما متككل عنو كسيجي ورئناد إلهي كبقدان وصومالي نمديين أقول نحضان وقدال أولابتان دلك أدينك إسكاله هاي إسكبو بنا قف والببريب قد بكجليا عنادان هذا كوكرتو أفكار علوش كبو حسود داري يدبق نص امتحاني كوكتاه بريبا لغا حسابيني waxaan ku dardaarmaya qabiilka iska dhaafo Soomaalinimada fiirsha qofka meesha uu degan yahay ku xaq dhowra waa walaalkiin halala dago qofka diidan hada dulmi qaba way marka dulmiga la iska daayo salaamu calaykum